وويل لنيرا oo caadaystay maasi iyo tuuganimadiisu heer waxay gaarsiisay in uu ka xado saaxiibadii gaarigoogii guriga hor yaalay. markaste uu isku dayo in uu toobad keeno wuxuu is yiraahdaa dambigaad gashay toobad male. haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa isagoo masaajidka ku jira ayaa wuxuu maqlay wadaadkii masaajidka oo wacdinaya kana hadlaya xaaraanta iyo dunuubta ay leedahay. wiilkii dhalinyarada ahaa waa uu ooyay waanu toobad keenay waxaanu go'aansaday in uu ammaanadii uu ka soo haday asxaabtiisa uu u soo celiyo. wax kasta uu qaatayna uu iska soo celiyo. haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayuu taleefanka qaraacay saaxiibkii oo ahaa ninkii gaadhiga iska lahaa. waxaanu u sheegay in uu soo celin doono gaadhigiisii. sidiina uu yeelay gaadhigii ayuu qaaday. waxaanu doonayay inuu celiyo qofkii lahaa gaadhigan. waxaanu go'aansaday inuu gaadhiga guriga hortiisa u dhigo amba meel u dhow guriga. kadibna uu qofkii lahaa intuu la hadlo yiraahdo gaadhigii halkaas ayuu ku yaalaa si aanu isaguna u ceeboobin. haddaba goorta isagoo wadada ku jira oo gurigii saaxiibkii u dhow wuxuu arkay nin dhulka yaala oo qaylinaya. gaadhigii ayuu joojiyay kadibna wuxuu u soo degay ninkii qaylinayay si uu u caawiyo. kadib uu ag tegay waanu soo kaxeeyey si uu dhakhtarka u keeno. ninkii dhaawaca ahaa ayaa baaskoolad ula soo baxay ninkii caawinayay. waxaanu ka dhacay gaadhigii. kadib gaadhigii ayuu iska kaxaystay ninkii. kadib dadkii lahaa gaadhiga uu rabay inuu soo celiyo ayaa waxay sii diyaariyeen askar. goortaana gaadhiga waxa wata ninkii soo dhacay gaadhiga ee ka soo dhacay ninkii markii horeba doonayay inuu soo celiyo dadkii uu ka soo dhacay markiisii hore. kadib askartii way qabteen ninkii. waxay la soo hadleen saaxiibkood waxayna ku yiraahdeen tuugii gaadhiga naga dhacay waan qabanay dabin baan u dhignay askartii ayaa xidhay. kaa la xidhayna wuxuu ahaa kii isaga naftarkiisa ka sii dhacay gaadhiga. waxaanu xaqiiqsaday badbaadada uu badbaaday. toobadii nasiixaheed ee wanaagsaneed uu toobad keenay. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون